والله وبالله او تالله هوينا waa leen ka saaraya saxiixa wadanka inaadna madaxweyne dambe aadna isku soo sharaxi doonin wariya abgaal hadaad xaniyeeleedihiin salaad gabayre had ma cunteen والله وبالله hadii qabilaad kale Soomaalida sida habar gidir xawaale mursada iyo nimanka kale hawiyaha wax way gaal jecel wixii lamida haduu ka dhalan lahaa 200 ama 500 ama 2000 oo wiil oo dhimalahay waa adiga shiribka ku tumay ee yiri igaarka minaan la toogan toosime xalii qaran buu ahaa shiribad waxa way baalkii sheeko dul tiriseen war meel leedin raaca lama yaqaano jagadi ugu sareeyay wadanka adinka ku fadhiya ilaa maanta ilaa maalinkaad ka soo baxdeen Muqdisho ilaa hadda waxaad ku haysaan waxa way waxba xoreynayna Shabeellaha Dhexe 2000 oo wiil oo habar gidir ah ku dhimatay waxa way Shabeellaha Dhexe Soomaaliya cidii ila aragtay abgaal inay ugu sawir ay wado muuqaalka la gareyso aragtidiina ka dhiibta sida sheer gareeyo oo gaarsiiya abgaal gobol degmo iyo tuulo meesha ay jiraan waayeel abgaal iyo weyl oo ninkii waraabsaday raacada cunadana waa nooga horeeyeen abgaalow waxtarkana waxa weeye waa leedin kaga horeeya wallahi oo billahi oo tallaah inaan shirib iyo heestan baan ku tumaynin Muqdisho iyo Shabeellaha Dhexe hadaan la xoreen wadanka aanan xoreysan dhulkiina war ma dhiig ma lihidin miya baranbara miyaatiin dul alle idin bade kar in ku dhacday war qabiil dhan oo ka badan habar gidir iyo xawaale marka la isku daro iyo murusada ka badan oo abgaal Cusmaan liira ayaa la yiraahdaa maxaad waxa weeye la idin kaga laayahay inaad dhimataan oo baaba'daan oo dhulkiina aad xoreysataan war baaba oo xoreysta dhulkiina wallahi baan nabad lagu helaynin meel dhig ku daadan wallahi baan dumar ka xalaasha idin ah aan lagu riminaynin nabad meel dhig lagu daaday aawa meel iga sara male waxaan la xanaaqsanahay waxa weeye nimanka la yiraahdo abgaal Cusmaan jimcadan hadda aan ku jirno ma jimcadeedii kale yahay markii inta Muqdisho ka baxeen ay cadaalad tageen oo ay yiraahdeen waxaan iska celinaynaa cadawga haysta dhulkayaga war ilaahan idin ku dhaarsheenin afadaada iyo walaasha oo marka ajnabi ah oo ay ku sheegeen cadawga inuu mujaahid yahay oo sanku inta la eg yahay inta guursaday ama naagtii markaas waxa weeye oridii ku dhaxday ee dhulka ay cadawga haystaan joogtay inta la yiri Amiir Hebel ku soo codsaday uur loo yeelay dabeedna inta ilma laga dhalay wada sanku inta la eg yahay xitaa sinji Soomaalinimo iyo sinji Islaamnimo midna aan lahayn ninka iska fadhiya ee waxa weeye iska dhowranaya inta cadaalad tigay dhahay maalin walba waa socdaa warnamayo abgaalo waa maxay waxa sida wax wadan waa والله وبالله او تالله هوينا waa leen ka saaraya saxiixa wadanka inaadna madaxweyne dambe aadna isku soo sharaxi doonin jagada ugu sareeyay ee wadanka madaxweynena aad halkaas dhigi doontaan la soo mushxarada oo dumarka la mushxarada iskana dhiga qoryaha yubka aad wadataan deegaanadiina waxa idin xoreynaya habar gidir iyo samatalis nimanka xawaadla la yiraahdo oo ah niman haliyeeyaha waxa way horar u jiri jiray hadeertaana Soomaaliya oo dhan ay ogaatay waxtarka ay u leeyihiin ummadda Soomaaliyeed wariya abgaal hadaad xaniyeeleedihiin salaad gabayre had ma cunteen wallahi oo billahi hadii qabilaad kale Soomaalida sida habar gidir xawaale mursada iyo nimanka kale hawiyaha wax way gaal jecel wixii lamida haduu ka dhalan lahaa 200 ama 500 ama 2000 oo wiil oo dhimalahay waa adiga shiribka ku tumay ee yiri igaarka minaan la toogan toosime xalii qaran buu ahaa shiribad waxa way baalkii sheeko dul tiriseen war meel leedin raaca lama yaqaano jagadi ugu sareeyay wadanka adinka ku fadhiya ilaa maanta ilaa maalinkaad ka soo baxdeen Muqdisho ilaa hadda waxaad ku haysaan waxa way waxba xoreynayna Shabeellaha Dhexe 2000 oo wiil oo habar gidir ah ku dhimatay waxa way Shabeellaha Dhexe deegaan uma laha oo deegaan ahaan ma deegaan marka laga reebo waxyaabo yar oo marka laga reebo beero yar oo farakuturis ah oo waxa way deegaanka ay ku leeyihiin Soomaaliya cidii ila aragtay abgaal inay ugu sawir ay wado muuqaalka la gareyso aragtidiina ka dhiibta sida sheer gareeyo oo gaarsiiya abgaal gobol degmo iyo tuulo meesha ay jiraan hawiye markuu dhinac u dhaqaaqo oo uu talo isku raaco abgaal waxay aadi jireen dhinac kale ama tala keen lahaa ama tala raac lahaa abgaalow fulayxanti ma moogaa la yiri Soomaaliya hore waxay u tiri waayeel abgaal iyo weyl oo ninkii waraabsaday raacada war ilaahan idin ku dhaarshay nin afadiisi iyo walaashii iyo waxa weeye hooyadii la fuulay ee uur loo yeelay ee haddana waxa weeye ugu sawir cadalo waxa weeye ku taaga ugu sawir cadalo u jooga xaq miya inuu waxa weeye ilaa hadda uu yiraahdo waxba xoreynaya farxaan qoroolan ku weyn anaga wada habar gidirna nimankii dhalinyarada ahaa wadanka u soo kacay waxtarka u lahaa ee aan rabnay inay wadanka deegaanada galmudug ay degto beesha tani xoreeya ayaan ku weynay ma degana Shabeellaha Dhexe habar gidir مدقنا حوالي Shabeellaha Dhexe hiiraan bay degan yihiin maanta adinkoo wadanka jagadi ugu sareeyay haysta ayaa waxa leedihiin wali wax horeeyna cunadana waa nooga horeeyeen abgaalow
waxtarkana waxa weeye waa lidinkaga horeeya wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inaadna shirib iyo heestanba aadna ku tumaynin muqdisho iyo shabeellaha dhexe haddaadna xoreyn waddanka aadnan xoraysan dhulkiinna sheekaad barateen jufo walba 14 jufo ka kooban yahay cayr jufo walba 300 wiil ayay waxa weeye diyaarida iyo Soomaali caawa joogaan oo ay ka dagaalamayaan xabadii ugu horeeyay magaalada hadda kala soo hadlay ee Gurceel bay ka bilaabatay ee lagu xoreynayay laga xoreynayay nimanka cadawga ee wadanka ku soo duulay war ma dhiig ma lihidin miya baran miyaatiin dul alle idin bade kar in ku dhacday war qabiil dhan oo ka badan habar gidir iyo xawaadle marka la isku daro iyo murusada ka badan oo abgaal Cusmaan liira ayaa la yiraahdaa maxaad waxa weeye la idin kaga laayahay inaad dhimataan oo baaba'daan oo dhulkiina aad xoreysataan war baaba oo xoreysta dhulkiina wallahi baan nabad lagu helaynin meel dhiig ku daadan wallahi baan dumar ka xalaasha idin ah aan lagu riminaynin nabad meel dhiig lagu daaday nim hadda ka hor baa waxa la yiri diidin baa wuxuu yiri afadiisa ku yiri waxaan u dhaaminayaa ilmahayga oo on baan haystay oo markaa raad daran haystay markaas afadiibu u sheegay yiri ilmahan u dhaaminayaa si ma weel inta ilmaha u dhaaminayo waa u baxay markuu baxay ayaa ilmihii haraadkii hay u adkeysan waayay markaas ooyeen markaas maamadii diidinku qabay waxay ku tiri aamuso hooyo aabihin baa waxa weeye idin keenay biyo dhaanbu idin soo wadaa markaas yiri been ha u sheegin ilmaha xerada ariga ma dhaafina sargaal ama nin caan ah oo idin ka dhintay ma jirto ilaa halganka hadeertaan xawaale bilaabay sanadkan oo ka socday Hiiraan marka la sargaal idin ka dhintay ama qof caan ah ma jirto markii la bilaabay halgankan xawaale hadda hormuudka u yahay oo Hiiraan ka socda ambuulo iyo waxaan la aqoon iyo soorad waxa weeye cunaydaan war ka dhiiga alla idin ka qaadiye oo gala dagaalka